Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada. Wuxuu si aad u jeclaa xaaskiisa oo u dhashay 2 carruur ah. Inkasta uusan taajir ahayn, wax waliba ay u baahdaan wuu sii jiray, balse xaaskiisa ma ahayn mid ku qanacsan. Haddii uu xaaskiisa dhar u soo iibiyeyna waxay ku dhihi jirtay, dharkani xilli hore ayay soo baxeen, mana doonayo. Si weliba ay ahaatan, ninkii uu u dhoola caddayn jiray wuxuuna ku qancin jiray in mar uu noqon doono taajir, kadibna uu u iibin doono wax waliba ay jeceshahay. Galab isagoo shaqadiisii ka soo socda ayuu u soo iibiyey 1 kiilo oo hilib ah, isagoo ku faraxsan oo isla kaga farxi xaaskaaga, reerkana caawa si fiican ha u casheeyaano. Kolkii uu soo gaaray guriga, xaaskiisana tusay waxa uu wado maanta, ayay xaaskiisii ku tiri, nin baad sheeganaysaa, 1 kiilo hilib baad guri keenaysaa, masaliid baa taal iyo wax kaloo lagu daro. Kadibna banaanka ayay u tuurtay hilibkii. Ninkii aad buu u carooday, balse wuu isdejiyey, wuxuuna isku qanciyey marnaba inaysan dhici karin inuu hoos u dhigo jacaylka uu qabo reerkiisa. Maalin ayuu iska dareemay xanuun aad u badan. Xanuunkaasna marba mar kasii dambeysay wuxuu ahaa mid kusii bata. Xanuunka oo aad u batay aawadeed ayuuna u tagay isbitaal, balse dhakhaatiirtii ayaa u sheegeen inuu qabo cudurka kansarka. Maadaama uu ahaa sabool, ma uusan heli karin daryeel caafimaad oo wanaagsan. Maadaama uu aad u xanuunsanaa, wuxuu isku dayay inuu reerkiisa kaafiyo. 2 sano kadib xaaladiis aad ayay usii xumaatay, waxaana la dhigay isbitaal. Waxaana laga jaray lugtii bidixda oo ahayd lugtii oo kaga soo bilaabaday kansarka, balse nasiib xumo waxay ahayd xilli dambe fayraskiina wuxuu kasii faafay jirkiisa. Wuxuuna u yeeray xaaskiisa si uu ula dardaarmo, wuxuuna ku yiri, xanaane oo daryeel carruurta, waxaan dareemayaa inaan adduunka kasii socdo. Wuxuuna neefsaday neeftiisii ugu dambeysay, wuuna geeriyooday. 2 bilood kadib dhimashadiisiina, xaaskiisii waxay booqatay qabrigiisa, waxayna ku tiri, wax waliba oo wanaagsan waad ii samaysay, waxaadna iila dhaqmaysay si naxariis iyo dulqaad leh, mana aanan garowsan muhiimadda aad ii leedahay ilaa markii aan ku waayay mooye. Goortii aan aniga noqdo qofka laga rabo cuntada, biilka, dharka, waxbarashada iyo waxyaabo kale oo badan. Waxaan xasuustaa goortii aan tuuray kiiladii hilibka ahayd, balse hadda ma hayo nus kiilo xitaa. Dhammaanteen waynu tabaynaa maqnaashahaaga. Ugu dambeyn, waxaynu tabnaa waxyaabaha inaga maqan, innaga oon iska indhitirayna waxyaabaha wanaagsan aan haysan, balse ka faa'iidaysa wax waliba intaad haysato intaadan ka shalay. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday muuqaalkan. Haddii uu ku anfacay, like saar, lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta kommentiga.